السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mid ka mid ah qisooyinka la yaabka leh ee cajiibka ah ee dunidan ka dhacay. waa qiso dhaaftay oo aan aad ula yaabay. qoraaga qisadana uu u bixiyaba qissatun cajiiba. waa wax la yaab leh, dunidan wax kasta waad arkaysaa. haddaba qisadan waxay ka dhacday waddanka Morocco sanadkii 2007. waa qiso wax weyn aynu ka faa'iideyno nolosha dadka, bulshada iyo sida loo nool yahay. saameyn weyn ku yeelanaysa qoysas badan. haddaba marka aan idin bilaabo qisadan, waa qiso aad runtii aniga laftirkeygu aan la yaabay qisada sida ay tahay. haddaba waxaynu ka soo qaadanaynaa qisooyinkeena qoraaga caanka ah ee la yiraahdo Abu Talal al-Hamarani oo ah suxufi reer Kuwait oo inta badan buugga qisooyinka uu qoray aynu ka soo qaadano mid ka mid ah qisooyinka la yaabka leh ee arrimaha bulshada uu ka qoro. haddaba qisadan waxay dhacday 2007 dalka Morocco ayay ka dhacday. qoys ka kooban aabba iyo laba wiil uu dhalay iyo xaaskiisa ayay qisadani qusaysaa. aabbaha waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan, wiilasha uu dhalay midka weyn waxaa la yiraahdaa Mustafa, midka ku xigana waxaa la yiraahdaa bin Ciisa. qoysku waa qoys iska shaqaysta, beeraley ah, shaqadu adag tahay. waa garanaysaa noloshu marka ay muruqmaal tahay oo adag tahay oo waa shaqo adag waaye. odaygii uu sii weynaaday, wiilkiisii Mustafa aad u caawinaya. beertu la sameynaya, gurigu kala shaqeynaya, alaabtu la soo gadaya. wiilka kale waa 20 jir isaguna, laakiin ilaahay amarkii waa caruurta dhibaatada iska haysato. maskaxdiisu waa 3 sano jir. way jiraan caruur fara badan oo Soomaaliya oo noocaasa waan arkay, way jiraan. ilaahay caafimaad ha siiyo. qofku wuu weeyahay laakiin maskaxdiisu way yartahay. dad ma dilayo, dad ma dhibaateynayo, laakiin waa cunug waaye, waana nin weyn. hooyadii marka hoosteedu ku jiraya. hooyadii marka asagii hooyadiisa isla joogay. waqtigu waa iskurayo xogaa. odaygii marka wuxuu iska dhaadhiciyey wiilkan haddii shaqooyinka hooyadiisa haddii laga kaxeeyo oo shaqo iyo wax loo bilaabo, armuu shaqaysan karaa. adiga waa yeelaa noqotay, xaalkaagu ma fiicna. marka te wiilkuna 20 jir xoog la waaye. marka sidee xoogiisa asaga uga faa'iideysan karaa? odagu marka waa odayaasha iska qadiimka oo reer magaal iyo waxa ka shaqo kuma. meesha la degan yahay waa baadiya, waqooyiga Morocco ay degan. noloshu marka way iska adag tahay. meel tuulaa la iska degan yahay. ilbaxnimo badan ma jirto, aqoon badan ma jirto. cunugana waa cunug maaragtay ilaahay uu si ka dhigay, laakiin wuxuu aaminsan yahay inuu shaqaysan karo, at least wax uun soo saaran karo. maalin maalmaha ka badan marka fikradu keenay. hooyadii oo la hadlo, hooyada waxay tiri Allah yakhliik, wiilkan ma shaqayn karo. waa wiil iska maskiina, ma yaqaan xataa reerkiisa iyo wixiisa dhan ma yaqaano. wuxuu yaqaanaa magaciisa iyo magaca aabihiisa, xataa dad kale ma xasuusanayo, wax kale ma yaqaano. waana nin weyn. war cunugaa shaqo kuma lahane, iidaa cunugayga maytun ku tijaabinayna. maalin maalmaha ka mida marka uu soo baxay, wuxuu soo aaday nin ganacsada. aabbihii Cabdiraxmaan ahaa ayaa soo baxaya. wuxuu yidhi nool wiil noocaasaan rabaa inaan kuu keeno, shaqooyinkan iyo waxa kan inaa ii bartaan rabaa. maamada ka soo kaxeeyo, waana cunug xoogaa iska xanuunsan, marka inuu shaqayn karay in kale bal inaa aragno waayo. waayaa ii keeno meel xoogaa tuulada ka baxsan, nin meel shaqo iyo alaab kula waayo. meeshii hooyadii oo qaylinaysa oo barooranayso le cunugaa iga kaxa inuu ka soo wado. aabbihii ninkii u geeyey. ballantu waxay ahayd 2 maalmood markuu joogo inuu soo laabto cunugii oo guriga yimaado. ma joogo cunugii, ma soo socdo. 2 maalmood way dhammaatay. maamadii waxay leedahay Allah yakhliik, war cunugayga xaguu jira. war waa meeshii
odagii waa soo baxay ninkii uu tegey waraa wiilka guriga u soo diro mataqaana haa uu yiri uu soo baxay yiri meel uu aaday markii ma garanayo waa la waayay cunug bil laba bil markay laba bil sii socoto la laayahay ayaa maalin maalmaha ka mid ah guriga Cabdiraxmaan waxaa yimid gaari booliis Cabdiraxmaan oo baahnay waa naxay Cabdiraxmaan weligiis booliis iyo askar iyo waxba kuma darsan soo fuulay gaari adaan ku rabnaayo maamadii way yaabanta wiilkiisii weynaa Mustafa uu yaabay odaga xagee loo wata say u soo wadeen booliiska waxay keeneen meel isbitaal ay keeneen dhar meel yaalay tuseen waxay dharkan ma garanaysaa markaasuu yiri haa wiilkaygii waa u dhahay dharka wiilaa iga maqan asaga booliiska u sheegay macnaha booliis badanna meesha ma jiraan markii uu wargeliyay booliiska markii laba bilood cunugu maqayaan booliiska markii wiilkii waxay yiraahdeen dharkan ma wateen haa uu yiri dharkan uu watay way soo wadeen isbitaalka keeneen waxay yiraahdeen wiilkaaga intaxara uu isdilay oo soo isku dilay meel biyo ah oo tog ah oo u dhaxaysa meeshii shaqada aad u geysay iyo gurigaaga ayuu ku dhacay haye saan u raadinayna mar damba qolooyin meesha toga ah ayaa soo helay meedkii oo rushrushay laba bilood waa garanaysaa lama garan kara xataa marka meesha ka helna dharkiina meeshuu yaalay dharkii aan soo qaaday meedkiina meel farantiyeer meesha aan gelinay marka aad looma aqoon karo marka wiilkaaga Allah yarxam odaga waa naxay habartii oo cunuga ka kaxay oo wiilkayga haga wadin ku haysay muxuu sheegayaa odaga iska waayeelo ah laftirkiisii wadna xanuun iyo dhiig kar iyo waxbuu qabay laftirkiisa lagu kacay xaalkiisu ma fiicna guriga yimid asagoo madnuusan wiilkii iyo maamadu xiraan baxashay wax u dhaceen wixii uu sheegay maamadii waa qaracantay way iska oo isur cunuga haga kaxayso kuma dhih cunuga caqli ma jiree waa miskiin annaga noo baahane cunuga hawadiisoo kuma dhih maxaa sameeyaa wiil anigana waxaan islaa xogaa uu karti iyo waxa soo yeelo hooyadiisa xogaa ha ka soo tago war hooyo maxay taa cunuga waxba ma kala ogay war cunugayga hadda ma dhintay maamadii waa iska qaracantay iska weys meedkii la soo qaaday waa la aasay 7 bari markii tacsida la joogay odagii wadna xanuunkii uu qaaday uu dhintay Cabdiraxmaan waa ku daayay halka marka maxaa ka tagay odagii waa tagay wiilkiina waa dhintay Mustafa iyo maamadii soo maamadii waa wareertay maxay samaysaa ma garanaysaa subaxii u soo baxdo qabriga tagtaa wiilka maghribkii ka soo noqotaa maalin maaha toddobaad maaha bil maaha laba bil maaha sanad laba sano 3 sano 4 sano 5 sano sidii samaynaysaa subax walba way tagi quraanka ku soo akhrinaysaa oo soo ducayaysaa oo soo tagaysaa subaxii u tagto ilaa habeen Mustafa si kasto inta yeelo walaa qoy meel xafad meel tuulada geeskeeda oo guriga meel aan saas uga fogeynaa lagu aascunug 10 sano markii ay markaa hawsha asaas ku socoto maalin maalmaha ka mid ah marka tuuladoodu waxay ku taalaa shimaalka tuulo ku taala januubka oo nin reer shamaal macnaha waqooyiga ay iyagu degan koonfurta marka koonfurta tuulada ku taala nin dukaan ku leh oo markiisii hore ahaan jiray reerka degan dhinaca waqooyiga oo tuuladan dadka degan iyo deegaankan aad u kala yaqaana oo meesha mar damba u guuray oo meesha tuulo dukaan weyn ku haysta ayaa maalin wuxuu arkay wiil aad u ka jajaban tahay oo xoogaa ari ah la socda kaasoo wiilkii wuu fiiriyay darxumada ka muuqata dhibaatada ka muuqata wuu yeeray markaas wuxuu yiri kaalay wuu soo fariistay ma ku siyaa cunto ma uu dhaanay biyo la isi magacaaw lah kaasoo bin Ciisa aabbaha magaciis Cabdiraxmaan reerkaagu maxay yihiin ma garanayo xagee degan yihiin laa aarif ma garanaayo reerkayga hadda intee joogtaa
عم مد أدير ماشي جوجا أرجع إسكالي عن ماشي لجوجا حاجة جبلك بورها دشوا ذا بال قرية كيالات أو تشقه عن لجلين وحتى بابور تكينو موتى حتى تيكينو لوها لوفولو ماشي سأرجع لجليه وياي لكن مركو حوجراني ويل كان أبيه سيو وسكرانيين إيو غير كان إيو لكن ويادا ضبوا طبعا كان سنة أسوي حاجة سكونوري شكله دعضي إيو ويل كانوا دنتي إيو عبد الرحمن كانوا دنتي وحصلوا مرك معي مالين مال ما كم إذا مرك أيو أحمد كي وحو قصة صفري لنا عوقوية سيو أهل كيسيو مدد دور صراحة وكم غناء وصوب بغضاء ماشي مركو يميدو شاكا لا سوكا كانيو ايا ويلكي مصطفى اها او ويلكا لا دشاي ماشا سو مرايو كاسورا وريادا ورا الذين هياوي هي ويل كان مصطفى ويل او اك ان waxaan ku soo arko yiri meesha jabalka meeshas aqli ma jiro dhahay aabihiisi magaciisu beer kariyo garanaya wiilkaana markaas uu garanay wiilka Mustafa uu salaamay markuu iska gudbay moogtahay dadkii marka waxay yiraahdeen wiilkaas aha magaciisu muxuu ku yiri bin Ciisa aabiis muxuu yiri aabiis wuxuu yiri Cabdiraxmaan war bin Ciisa la dhihi jiray oo Cabdiraxmaanka uu dhintay dhalayo isaguna sidaas ahaa oo waxba kala garanay laakiin kaas waa dhintay kal muxuu ahaa shakiya kale dadku marka way yaabeen wiilkii ninkii gurigii Mustafa iyo soo yimid iyo maamadii markaas uu arin noocaas soo arkay Allah yakhliik tir maamadii sawirkiisa ma aysa Mustafa wuxuu leeyahay waa dhintay wiilkan ashan qabrigan galinay dharkiisa waa tii la keenay ma wiil kale amu yahay oo balayna wuxuu yiri marka labaad oo meesha hadaan arko waxaan weydiinayaa sawir inaan ka qaado hadduu iga ogolaado telefoonadiina isii si aan sawirka idinkugu soo diro nambaradii ka qaatay uu iska tagay inka marka waxa yiraahdaa Ahmed tuuladii isaga laabtay ninkii sugaya marka ma joogay maana week laba week bil laba bil saddex bil afar bil shan ونحكي واي قلادي دوي سوى عيا ما عرفتي ما يقول ولي ما عركين صارت كل أوقات مركي ونكي راديني أيام معلم تدم بس كذي سويمي ماشي أصومري ويا راي ماشي سوفريسي وورا استسديو كلو ما قرنا يوحكله أو أنا هاي مجي عيسى مجع أبيس نكا أو أرجع كوسو ديبت مجي عيسى دي اللي عم وسكله أدير وحكله ما يقانو ويا كسوري أدير صور مكاقاضي إيه قاضي صور كقاضي صور مكو كقاضي وحو الصوت لي ويلكي لنا شيء يا محمد إيكي وسكتك أرجيس وسكوت ويلكي محمد مركي أركته وحشر والله العظيم وويلكي وحيرو إسبدليو طبانك سنو إيقام مقنع ماهر واصي مصطفكي وحولي واو ولالكي نكال سيدي كل عكرتا لكن انتي او aan xabaalnay sidoo u noolaan kara waa waxa qisada magaceeda loogu bixiyo leeyahay qissatun ajiiba oo inta qiso uu qoray qisadaas ajiiba ku daray waa la yaabay war sidee wax u jiraan maxaa dhacay marka uu wareystay Mustafa Ahmed wuxuu yiri meesha uu joogo xagee waay wuxuu yiri dhakada sare boorta korkeeda guriga ku yaala qabaa'ilka meesha degan waa qabaa'il dib badan oo maarata iyaga dhexdoodaba islaayo marka sidee lagu heli karaa ma garanayo yiri maxaa sameynaa marka wuxuu yiri waxa soo ka haysataa dhalinyaro badan hub iyo baakoorada iyo alaab iyo soo qaata marka kadib waxa sameeysan guriyaha ma badna oo meesha ka dhisan mid u baara kadibna ina heshaan waa laga yaabaa meeshu ii tilmaamay waa meeshaas hadaysan wax kala jirin marka buurahaas korkooda ayaa la degan yahay hoostoodana waa laga baqaa
jiniye iyo alaab kale cirfiid iyo jaaja alaabtaas meesha joogaan wax meesha jin iyo cirfiid iyo meesha waa la dhooban yahay hoos korna dadkaasaa degan marka nin hoostiisa jiniye degan yihiin kor ku nool oo la macaamilo jiniyaha haddii xaalkiisu waa xun yahay u balaydha nimankii marka waa loo sheegay waxaa la yidhi saasaa ka jirta buuraha sidoodana buuraha jinka ma lagama agwaayaa la dhahaa marka waaba wax iska normal oo caadi ah oo meel walba oo buuro leh jiniyuhu way ka agdhow yihiin allah wiilkii Mustafa ahaa wuxuu yidhi war wax kasta nagu qaadatay walaalkay aan raadino wiilalow soo kaxaysta qaraabadiisa iyo waxay yidhahdeen kan aan kula raadinay waa la soo baxay baabuuraa la soo qaatay sidaalaa lagu shubtay meesha dee way kala fog tahay waa waqooyiga iyo koonfurta magaalooyinaa lasoo dhex marayaa marookadana waa iska weyn tahay markaa meeshiyaa la tegay meeshii markii la tegay axmedkiyaa loo tegay dukaankiisii meeshii u tilmaamay qaabkeedii waxeedii meelaha loo maro wixii dhan u sheegay maadaama asagay ka adeegtaan dukaamada yaree meesha ku yaalla markay buurta ka soo degaan dadka meeshaa degan meesha marka wiilka meesha soo marana ariga iyo meesha marsiyo meesha isku barteen waayo Mustafa wuxuu yidhi tawakkalna cala allah nakana ilaahay yaan tala saaranaynaa walaalkeena raadinaynaa hadday nala diriraana waa la diriraynaa in walba hubkiisa wixiisu soo qabaystay waa la soo baxay horta marka hore buurta intaa ka koraysidaa waxaa leeyahay meesha alaab kale aad joogtaa qur-aankooday akhristeen waa soo gudbeen meeshaas wax dhibaataa kuma arkin buurtii ka dhakada kore yimaadeen meesha ugu koraysay buurta ayay soo istaageen gurigan gala kan gala markii dambe gurigii galeen mid walba marka way weydiinayeen waxay leeyihiin nin la yiraahdo wiil la yiraahdo bin Ciisa ma jooga ma dadka fiifbeekan soo gala baabku ka furay albaabku waa iska qoriyo buur korkeeda ka dhisan waa garanaysaa noocay u dhisan yihiin meesha dhan waa iska geedaa buurta korkeeda xataa ka baxay qayb kayma waay bahalla waay ari haystaan waxba la haystaa buurta korkeeda lagu haystaa meesha wax laga laxaamay dadka qaarba oo naaba baqayaan markaas waxa dhacay gurigii markuu soo furo kaasoo bin Ciisa waa jooga bin Ciisa waak nag wiilkii walaalkiis waay uu salaamay akhi walaalkayo markaasuu yiri ninkan waa walaalkay markaasuu ninkii wuxuu yiri wariyaa waa dayacdeen wiilkan waa kaas waa dayacdeen waxa dayacna male waa ka haysanayna walaalka ma ka haysan kartiin male meeshii buuqa ka dhacay ninkii iyo Mustafkii ninkii ku bilaabay ninkii waa qeyliyay waa waray soo gaaray waa ninkii buuraha saarna qaara fallaaro la soo baxay علي بيستوى يقول علي بيستوى عمر بلزار هو اللي هو كان عادي باه فالله الصبح لو يقول اسكو عليه يقول marka hoos ka soo xirteen ninkii iyo wiilkii iyo ayaga ku jiray la todoba wiil la socotay banaanba loo soo bixi karo niman ayaga dhalba Ali Beestera oo fallaare iyo sayfo iyo wata soo baxay markaas nimankii booliiska telefoonka wacaan booliiskina waa soo wargeliyeen oo xiraadeen sheekadaas jirta meeshaas aan u soconaana la ka warqabo booliiskii marka way soo carareen meeshii yimaadeen helicopter timid meeshii helicopterkii markay arkeen nimankii waa kala carareen helicopterkii dusha sare ku degtay dhowr askariya ka soo degatay kuwa kala dhulka ka soo fuuleen meeshii la yimid nimankii guriga ku xirnaa ayaa laga soo furay ninkii iyo wiilkii iyo wiilashii kulli booliiska soo kaxay waa la isla soo degayo meeshii saldhiga booliiska ugu dhawaa la isla yimid ninkii marka waa la wareys waxa la wiilka lacag ka kayd 10 sano la weysiday oo qaar waaba dhintay waa la xabaalay intuu kaaga yimid markaasuu wuxuu yiri wiilkan asagoo iska socdo buurta korkeeda qabtay ahaa haye meeshaas marka
isagoo iska ooyaayo oo maaragtay oohin hadal aan aqoon wax kala sheegayn magaciisa bin ciise aabba cabdiraxmaan reerkaagu xagee degan yihiin ma yaqaano xagee wax kale ma yaqaano marka meesha anaaba soo dhaweeyo dhaay maalintii adig wiilkii waxaa la weydiiyey maxaa cuni jirtaa leeyahay markaasoo yiri ariga waxay cunaan walaa xawla walaa quwwata illaa billah ويا مامدي ولي ما يمان وقاذا نوا كان أي بوليسكي وحي على إسكو هيستا ماشي نيكي قال له يدي وحلك محاسين جرتي على بيستوى بركة سوعيري حولها وحي علال وعلي جري حولها محاسين جرتي حولها محاسين جري قب كمارة بابايقا إيو موسكا إيو وحاسي نيكي علابتا سودا دلي جيرو راي وقال بيبس على سيرا ويرا علابتا سودا قراعة أصدقائي حولها وإسلا جرال لا حول ولا قوة إلا بالله ما مضي يتمد ما مضي مركي يتمد وقرعت الله ويلكي ما كان سوى حولي ما ذو قرنا يدي باي إذا كل كذا تتكيس بوقتي برك ولا يبي وحلا ننتي صبور تكر كذا تجي سو حتى شمالك أنت كتجي جنوبك وتجي ما دور ساعة وتقاري الله صوصعنا روحان وحكن واحد كربان يا جيني كربش وحلا ياب لصبا وحلا ياب بوليسكي وياب المرك بوليسكي وحيدب السوق لابتين فايل كودي 10 سنة كور نيكي ماشا لغو حبالي oo maamadu subax walba inta tagto habeenkii ka soo rawixi jirtay ayaa waxa laga qaaday DNA lafiis dewa hadda dhow 2007 wax walba waa horumarsan waliba waa 17 sano ka soo wareegtay 7 markii sheekadu bilaabatay waa 10 sano ka soo wareegtay 2017 la maraa wax kasta waa okay DNA-dii la qaaday magaalo weyn la geeyay waa la soo baaray inuu san shaqaba ku lahayn reerka ninka meesha ku aasan بوليسكو marka waxay ogaadeen qalad dhacay inuu yahay waxa kana wax la maleegay inay yihiin ninkii cabdiraxmaankii dhintay odagii uu u geeyay wiilka la soo xiray qaar kale oo shaqaalihii maagaas joogay ka haray inta badan waa la bedelaa la soo xiray wixii oo dhan la keenay ninkii meeshii lagu ciqaabo waxa la sheeg sida wax u dhaceen ninka marka nin weyn u noqdo asagana waagaas deebadan in odayo noqday markaas wuxuu yiri nimayo dhageyst waxa rabtaan u sameeyay laakiin xaqiiqada jirtaan idin sheegaa aniga meeshaas aan joogay niman marka dhaqaatiira oo waxa ii yimid dadka kaliyaha iyo waxaas kala bax hay marka ninkii aan u qorsheynay inay kaliyaha iyo waxaas kala baxaan ayaa markii baaritaanka lagu sameeyay ninaa keenno yiri meel ka keenay baaritaanka lagu sameeyay ayaa ninkii anfici waayay aye wiilkaana asagana dhiig laga qaaday waxa la yiri ninkan waaba saliim nadiif way kaliyihiisa kana curaynaa dheen kii marka la keenay meeshii lagu ma celin karee wiilkanna odaga cabdiraxmaan kaas ku fiicneen oo dardaaran badan oo igala dardaarmay sidee marka la yeelaa marka nimankii waxay yiraahdeen dikkan kaliyaha ka jiran asaas ku sameeyno meesha ku tuur xagee ku tuuraynaa waadiga geeskaas mara oo biyo badan leh aan ku tuuraynaa wiilkan dharka ka siiweena meeshaan dhigaynaa kadib booliiskii wixii la wacayaa 2 bilood bil kadib ninka meedkiisa marka la soo saaro cid aqoon karta male kan marka bilaa calaykum inta ma ku sameyn kartaan marka waxay kan waa ka haysanaynaa waxaan geysanaynaa koonfurta meesha buuraha agtooda alaabteena wadanaa dhac waa kala tuuraynaa kana meesha ku xabaalaynaa lacagtaada qaado adiga waa lacagtiina ka qaato aniga nimankii gaariga ku haysteen oo wiilka ayaga qaaday oo buurta geeyo nimankii mid kamida la soo xiray nimankii kale wax dhintay iyo wax kale waa 10 sano ka soo wareegatay nimankii oo meesha geeyay mid kamida la soo xiray
وحال ويلك ماشي مركا وعلاي ويلك بركا ماشي جينا أدتشني أردكا لين سوق بتاب اللوايري وأردا التضحي فقط حبورت حق كب حق جيد نحدود وابا وينونا مال وكب حاوين هاي marka waa ka sabarno yiri lacagtii ninkii waa laga qaatay ninkii wuxuu moodaa ninkii inaan qalanay anaguna ninkii maanan qalanin waa iska soo tagno dhax alaabteeni qalabkeeni waxaan la soo dhoqonay ninkii ilaaha badbaadiyo dhahay oroduba raaxada nooga qaado meel qof soo qabtaa la waayay waa marka ninkan uu leeyahay isagoo buuraha iska socdaan aan soo qabto guriga keenoo iska ooynayo leeyahay cali beesteenadii uu galay barka nimanka buurta saaran cali beesteen kuwaas cali beesteen nimankan Mareykanka loogu tagay iyo Australia iyo Canada iyo lahaa laakiin waxa buuraha saaran waa noocaas oo kale wadadan diin iyo waxa kan iyo waxa noon shaqo ku lahaynoo meelaha isaga nool juqdaas waxa arkaan iska disho iska cuna kuwa daayarada cuna la sheegay kuwa waxa kasta cuna marka meelaha niman meesha iska jooga nimankii marka saasoo ninkii ugu galay saasaa marka hawshiisu wiilka ahayd masaasay ahayd wixii oo dhan booliisku waa isku soo dubarideen wiilka laftirkiisa waxa la DNA laga qaado waxa kan waa booliiskii wareerayba booliiskii waa wareersiin DNA laga qaado hooyadiisa isagoo yeesheen iyo walaalkiis wiilkooda soo ka haysteen wiilkii oo finanka korkiisa waxa ka soo baxay dufta ku taala xoolaha cuntadooda cuni jirin wareersan guriga markii la keenay bariiskii baastadii 10 sano ka hor ugu dambeysay iyo wixii meesha qubiskii ay cunaan carabta bogtahay qubiskii wixii ka baba cuni kara moos marka alaabta dhaxal iska tuurano markaas waxa la cunaa qolofka kaliya la cunaya عنبها ولا فيقة ولا طورة وحي أرجع علا إلى العراء ما مضي يويل كي شيء يلان واي مركي دب ترتيب وشو هجاج اختراع لجي وحي على السماء وويل كي مركا سديو فجوجي واحد عي مركا نيكي ويل كلوجي إن مركا كجتي أرتحب سدائنا على حكومة على بيستيك ويل كقرف أو سيناي مارتي باباي عنبها أرجع وحنا سيناينا شن يتوصل على حكومة كوي كله كوا لبا مرقاتياله هو أننا جوجنا هنا يجنا لساق بتويل كماشوا اسكتور انتحر ويستيلكوي ده يجنا تضبط سنة حبس قالوا جلين مركو حكوت المامي قصة إني أحيد قصة عجيبة ليابله marka wuxuu leeyahay maxaa laga baran karaa qisada marka waxyaabaha laga baran karo aad ka muhiimka waxa kamid ah cunug noocaas haduu ilaahay ku siiyo way jiraan ilmo badan oo saasa maskaxdu yartahay oo aysan korin macnaha maskaxda ma korto wuu iska weynaana qolofkii weynaana garkii uu leeyahay shaarbii uu leeyahay qof weyn waaye laakiin maskaxdiisa 3 sano markay joogtay meeshay joogtay joogan ilmo yar haduu arko la ciyaaraya ilmaha yarka 3 sano jiro wuxuu ismoodaa inuu iyaga isku mid yihiin marka waa dad noocaas jira marka in ilmaha noocaas aan culays la saarin ilaahay baa saas ka dhigay qofka والدك أنا إلهي باسيي عنقا مركا إنا إلالسو حفدسو برنانك كإلالسو إلهي وحي إلهي وكو امتحاني إنا أقبشو ويلكا مسكينكا إلهي مسكحديسو أذيكو كو امتحاني يا والدك مركا حتى ضيعضو لبكاسا معنا وضيع عبد الرحمن سوون اسكرر باديو wuxuu islaha cunuga 20 jirka oo kowkowlaha isku kawiska xoog gale ha shaqaysto xogaa maamadan inta ka soo dhaxbaxo marka ma aamisana isagu maskaxdu inay san korino cunugu iska tabcaan yahay waxba kale ogeyn ba aamisana wuxuu at least waxun haduu laba loor qaado loorarka iyo waxaan qaado xogaa lacag la soo siiyo maamada u la yimaado adigu qof weyn aan noqoto waa dhiman kartaa Mustafa kaligiisa reerku ma kaafin karo adoo waxa soo fakaray markii waxa ku dhacay odagii wadnihiina uu istaagay waa ka meesha ku tagay marka qisadana waxay ahayd qiso runtii cajiiba adikuna fakari aragti waxaad qisada ka barateen sida caadada noo soo qora qisadeenuna inta ayaa ku soo gabagabeynayna